qofka diidmasho la siiyo ama negative la siiyo miyaa la tarxiilaa qaabkeena ayaa loo tarxiilaa horta dadka la tarxiilo oo anigu aan indhahayga ku arkay ama aan la joogayba laba ayay u kala baxaan kow waa kuwa wadan kale fara ku leh ama dadka xabsi ku jira ama dambiye waaweyn sameeyey qofka jarmalka laga tarxiilo horta dee sida maraykanka oo kale maaha maraykanka waqti xaadirkan qofkii aan waxba loo soo sheegin ayaa wadada lagu qaban karaa waana la kaxeeni karaa jarmalka laakiin process dheer ayuu qofka soo maraya kow waa kuwa faro wadan kale ku leh marka bamfka waraysiga kaa qaado diidmashana ku soo siiso waqti bay ku siinayaan waqtigaas ayaad wadanka iskaga baxi kartaa oo slenderkana way la socodsiinayaan haddii aad markaa baxi waydo processka maxkamadana kuu soo dhammaado markaas ayaa lagu tarxiili karaa qaabkee bay markaa u shaqeeyaan badanaa habeenkii ama subaxa hore ayaa guriga lagugu imanaya ama slenderka ayaa ballan lagaaga qabanaya adigiyo dee aan waxba la socon ayaa halka lagaga kaxeynaya oo wadankii faraha aad ku lahayd ayaa lagugu celinaya laba waa dadka dambiyada waaweyn sameeyey ama xabsiga ku jira dadka xabsiga ku jira badanaa waxay la sugaan ilaa inta waqtiga xabsigu dhammaanayo kabacdi ayaa la kaxeeya dad anigu aan garanayo oo wadan kale aan faraa ku lahayn ayaa markii xabsiga dhameysteen ama waqtiga xabsiga dhameysteen ayaa Soomaaliya lagu celiyay